wasaaradda maaliyadda Professor Abdullahi Sheekh Cali Qaloocow aan leeyahay mar labaad soo dhawow waxaa kaloo soo dhaweynayaa dadka walaalaheen oo aqoon-yahanada ah oo dibadda ka kala yimid Professor Hiramow samafala Raxma Guuliye maaragtay ay sheegeen aqoon-yahan Boro Khalaa marka intaas waxaan leeyahay soo dhawaada waxaa kaloo idin sheegayaa horta waa insha Allah guulo wax ku ool ah oo maaragtay ay sheegayaan soo dhaw oo cid ay leedahay markii aan idin jabin 6 sano ka hor maanta meesha aan joogno maana joogno maanta waxaan u maleeyaa guulo wax ku ool ah oo haddii dawladda ahaan lahayd haddii shaqaalaha dawladda ahaan lahaa haddii maaragtay shay matalaad ahaan lahayd haddii wasiir ahaan lahayd inta 6 sano ka hor waxaan maleeyaa waxaan keenay 0 ama halaan ka ahayn maanta laakiin 20 30 oo maaragtay shay matalaad ah ama dhan kasta ahaata ayaan leenahay marka waxaan leeyahay aan dhanka cod badana waxaan u qaabisanahay cidda dhanka bishaarada marka kor ha loo kaco insha Allah arjayna sanadaha soo socdo jigooyin oo dhinaan doona insha Allah arjayna ahaadaan madaxweynaha iyo wasaaraha inta kale soo afjarto insha Allah marka waxaan rajaynaa insha Allah sanadaha soo socdo lambar badan hadda aan sheegayn laakiin jid ku soo jiro macnaha ay sheegeen la fiiqro kuma aan soo fiiqno rabo yaa jir dhalna insha Allah marka taas waa mid waan guuru wax ku ool ah cidaan aqoon-yahanadeeda iyo siyaasiyiinteeda iyo odayaasha dhaqanka iyo ma dhan kasta iska kaashan waxaan maleeyaa dadaalka la yareynin maaragtay juhdiga iyo isku xirnaanta isku duubnaanta meesheeda aan ka wadno maaragtay waxaan maleeyaa hadda hami badan rag badan dibadda noogu yimid Professor Abdullahi Salaamullah Hiramow Xasan Xaaji jooga Sahra waa joogta waxaa kaloo jooga nin yiraahdo Cabdisaaq Dhagweyne ayno waa badan hal iyo lix aan dhikarma marka la taliyaabo waa jira dawladda waxaa rajaynaa soo baxaa la imaado mid kale waxaa jiro hal kala in raacsan insha Allah bidna karim oo ah dhibaato ayaa jirto soo gaartay degmada Afgooy dhibaato ka jirto dhibaato caam ah jirto mid qaas oo anaga saameeysan way jirtaa dad walaalo ah oo ilaa iyo 35 qoys ah ayaa ku soo aadin guriyihii la duminayay dawladdu duminaysay aan ku yeelan marka aad ay u cawanayaan waxay taagin qorraxay taagin duruuf badan ay ka soo yeerayso marka waxaan jeclaan lahaa ya inaan maanta loo kala kicino lacag la yaqaano maanta nin walba maanta la hurguf marka anaan iska bilaabo waxaan ku deeqaa lacag $100 ah marka waxaan jeclahay warqad in loo dhiibo dadkan warqad in loo dhiibo wuxuu macnaha uu qoraayo oo cadad ah oo maanta aan kala joogsaleen qofka hadda aan hayn biri aan birid inaan ka helno